bismillah caaw waxaan qaadanaynaa conditional type 3 ama wax loo yaqaan impossible condition. Impossible conditionku waa qayb ka mid ah conditional sentenceska. Sidoo kale hadii jeer conditionkan hadii qeexitaan aan ka bixino waa isbedelka falka shardiilaha ah kaasoo ka hadla ama kaasoo hadii jeer lagu soo muujiyo shalayda ama implication of regret shalayda hadii jeer lagu soo muujiyo. Tusaale waxaa tahay maanta adigoo ah ama adigoo jira 80 jir ayaa markaa waxaa aragtay wiil 25 jir ah xaas qaba awlaadna loo haayo. markaasaa waxaa tidhi haddii maanta aniga 25 jir haddii aan ahaan lahaa horna markaa maan u guursanin 80 jirta guurna hore markaa maan usoo marin. markaasaa waxaa tidhi haddii maanta aniga 25 jir aan ahaan lahaa 3 xaas ayaan guursan lahaa. iska dhaaf 3 xaas inaad guursato 25 markaa jirtay hal xaas xitaa ma aan guursanin. soo maadaama hal xaas aadan guursanin maanta awlaad aan lagu haynin waxaad isticmaalaysaa shalay implication of regret nuqul shalay. soo marka qofku markii uu rabo shalay inuu uu muujiyo ama inuu soo bandhigo conditionka uu isticmaalaya waxaa loo yaqaanaa conditional type 3 ama waxa loo yaqaano impossible condition. soo marka haddii qeexitaan ka bixino sidoo kale qaybta if clause-ka wuxuu ku salaysan yahay simple past tense ama marka qaarkood past perfect continuous waa lagu saleeyaa waan arkaynaa. main clause-ka ama result clause-ka waa isku magac waxa asina ku dhisan yahay perfect conditional. perfect conditional ama wax loo yaqaano past future perfect tense. marka wax kale ma ahan waa sida ognahay future perfect tense will have ama shall have oo falka marka bb form laga dhigayo soo maahan kaliya marka will have marka past ka dhig would have balas falkaada ka dhigaysid bb form. ama sidoo kale model perfect na waa la dhahaa that means would have ama might have ama could have midkooda balas verbkaada waxaa ka dhigaysaa past participle ama third form of the verb ayaa markaa ka dhigaysaa isticmaal ahaan ama structure ahaan formka qaabkaas u isticmaalaysaa. soo marka qeexitaan ka bixino haddii maadaama aynu fahnay the type 3 conditional or unreal conditional refers to an impossible condition in the past and it is impossible that the condition will be fulfilled. Because it refers to the past, there is always some implication of regret with type 3 conditional sentence. عودة the type 3 conditional أما unreal conditional هذه جرو قاحتان وكبحية impossible condition أو مركا حالة صورة قال أنا هين أو ولو هرا مركا ولا عادي ولو كاسو مركا هاد لفول كرين أما لسمين كرين سببته هذه جر وكومو جنا وحياة مركا لصوت عارف واحد لصوت عارف مركا ديب اللي ما بدل كره سيدا أوجت حد يجر condition كان type 3 conditional كوحاله استعمال implication of regret شلايا الله استعمالها. And suppose you are 80 years old and you did not marry before and someone asked you what would you have done if you had been 25 years old. كسوقات إنها جرتيت سديتنا يا جرتها. هرنا مركا مان أقول سنين and someone asked you خفا وحكومة دي what would you have done ما حد سمين لهت هذا الأكود يا واكن سؤال شو كويدينا if you had been 25 years old حدي سنة لبعتن جير أدها لهت ما حد سمين لهت هذا كان الكويدي and then you replied كده بديك واحد يقول جوابتي هذا الكاكو جوابته واكن أمر if I had been 25 years old I would have married 3 wives أنا هدي عن شان لبعتن جير هدي أنا هالها وحنقول لها 6 حاس نقول لها سو مركا شان لبعتن مركا جرتي هال حاس تمام نقول سنين sida liajligeeda waana maanta adiga waxaad 25 ma jirtid maxaa la 80 jirtaa marka laakiin shalaayad u isticmaalaysaa form of type 3 conditional form ka loo isticmaalo if clause kama condition wuxuu ku salaysan yahay past perfect. main clause ka ama result clause alxamdulillah wuxuu ku salaysan yahay perfect conditional ama model perfect condition model perfect. marka perfect conditional waa maxay perfect conditional asaga that means would have balas falkaadu aad ka dhigtid bb form ama past participle ina ka dhigtid ama waxa laga yaabaa other models kala marka inay noqdaan sida would have might have ama could have inay noqdaan balas falkaadu waxa ka dhigaysaa bb form ayaa ka dhigaysaa. tusaale if I had worked harder I would have passed the exam. waxa tidhi imtixaankii ma dadaalin waa ku dhacday imtixaanka marka ku dhacday markaas waxa tidhi haddii aan dadaali lahaa imtixaanka waan ku baasi lahaa. so but I did not work hard aniga ma aan dadaalin and I did not pass the exam imtixaanka marka ma aan ku baasin laakiin haddii aan dadaali lahaa imtixaanka waan ku baasi lahaa.
So if you had not lied to me before, I would have believed to you. haddii hore been aan ii sheegi lahayn hore been haddaad igu sheegi lahayn waan ku aamini lahaa. marka qaybtan hadda yani waxay ku salaysan tahay past perfect tense. If I had worked harder, that means yani subject hadda I ano yaalo any pronoun any subject jumlada duu yaalo waxaa la raaciyaa falcaawi had ayaa la siiyaa. For all pronouns waxaa loo isticmaalaa had. falkaadina marka bb ayaa ka dhigaysaa. This is marka waxaa loo yaqaan waa past perfect tense. qaybta main clause-ka wuxuu ku salaysan yahay perfect condition. perfect condition waa maxay? would have. falkaada marka inaad ka dhigtid bb form. hadda qaybtan fiiri, if you hadn't lied to me before yani waa past perfect oo markaa diidma ah. qaybtan waxay ku salaysan tahay waxa loo yaqaano perfect condition would have. falkana waxaa ka dhigay marka bb form. So marka if I had been an educated mother, I might have put up my children better. haddii aan ahaan lahaa hooyo mutacalimad ah waxaa suurtagal ah haleed caruurteyda si fiican inaan usoo koriyo ayaa markaa suurtagal ah haleed. caruurta markaa si fiican maan usoo gurin, hooyo markaa oo mutacalimada markaa ma aan ahayn. marka halkan su-aalaha waxaa laga yaaba inaa isweydiisid. halkan maanta wuxuu ku salaysan yahay verb to be. If I had been, that means if I am an educated mother, haddii aan ahay hooyo mutacalimad ah. if I am. so maadaama if I am ee tahay if I hadda if I يعني am boostkeeda maanta waxaa ku bedelinayna had يعني falcaawe يعني su'aalaan subjectii waxaa la siiyaa falcaawe subject plus had. ama haysana am waxaan ka dhigaynaa bb form ayaan ka dhigaynaa b marka qaabkaasi ku noqonaysaa. oo haddii aan qoraal ahaan haddaan u muujiyo tusaale ahaan if I am ama tusaale ahaan oo kale jumladan if I am a teacher, haddii anigaan macalin aan ahay. hadda qaabtan oo kale ama I am a teacher aan dhahano. hadda I am a teacher yani waxaa leedahay jumladan past perfect tense ka dhig. so maadaama leedahay past perfect tense ka dhig, maadaama leedahay aniga waxaan isweydiinaa hal midaan isweydiinaya waxay tahay horta if caadi ii soo qaad. I waa subject caadi ii soo qaad. past perfect tense qaacidadeeda waxay tahay halkan haddii aan ku qorano qaacidada past perfect tense waxaa waaye subject plus had plus verb oo markaa verbkii marka aan ka dhigaayo bb form plus object. so maadaama qaacidahaan san ay tahay hadda if I subject waa kana I plus had waxaan siinayna falcaawi had ayaan raacinayaa oo waxay noqonaysaa if I had. okay waxaa leedahay subjectigii maanta aaway waa I. if yani waxay yidhi falcaawi waxa u isticmaalay had ayaan u isticmaalay plus verbkaadana waxaa ka dhigtaa bb form markaa ka dhig. okay maanta halkan verb ku haystaa ha falkan ku haysto waa am marka bb form ka dhig waa markaa been. so waxay noqonaysaa if I had been a teacher, haddii aniga macalin aan ahaan lahaa bala qaabkaasa markaa aan u isticmaalaya. marka hadda halaas waxaan filayaa inaan isla fahanay ayaan markaa filayaa. so marka if I had been an educated mother, I might have brought up my children better. so if you had been looking around carefully, you would have seen it. so haddii meelahan si fiican si taxadar leh dad u eegi leed yani waa yani marka waa arki leed. so marka kan waa you had been looking waa past perfect continuous tense. waa horena waxaan dhahnay waa loo isticmaali karaa. so what would you have done if you had lots of money? yani haddii lacag fara badan aad haysan lahayd yani maxaad ku sameyn lahayd? so marka qaabkaasaa loo isticmaalaa. aan isla fiirino marka contractionska yani qaabka waxyaaba loo soo gaabiyay would iyo had isku mid loo soo gaabiyo apostrophe d loo isticmaalaa. qaabkee marka loo isticmaalaa jumlada marka dhankee ka galaan. so marka both would and had can be contracted to apostrophe d. wuxuu dhahay labadaba would iyo had ba waxaa loo soo gaabi karaa apostrophe d loo soo gaabi karaa. which can be confusing if you not confident with that three conditional sentence. weliba kaasoo markaa ku jahwareeri kartid haddii aadan yani kalsooni aadan ku qabin ama yani conditionalka loo yaqaan that three conditional sentence isticmaalkiisa haddii kalsooni aadan ku qabin waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareerto. so remember two rules, laba markaa sharci ama laba rules markaa ogsoonow. rule number 1, would falcaawiyaha would never appears in the if clause. yani marnaba kama soo hor muuqanaysa if clauseska
would marka kama soo hor muuqanayso hada kan oo kale waa apostrophe d somaan I apostrophe d if I would hada loolama jeedo marnaba kama soo hor muuqanayso marka if clause-ka would marka apostrophe d marka kama soo hor muuqanayso so if apostrophe d appears in the if clause hadii ay ka soo hor muuqato apostrophe d if clause-kan hadii apostrophe d ay ka soo hor muuqato it must be abbreviated had marka waa in had marka yani loo gaabeeyaa oo hadda waa that means if I had noun waayo laakiin ma dhahay if I would noun qabso isla baahne hadne never appears before half so half horteeda marka kama soo hor muuqanayso hadda half halkan ku isana horteeda apostrophe d had maanta ma ahan so maadaama had aysan ahayn hadii so if apostrophe d appears on a pronoun just before half hadii ay ka soo hor muuqatane magacyelka half magacyel ama half hortiisa magacyelka hadii ay ka soo hor muuqato it must be abbreviating would marka waa in la soo gaabiyo would marka waa in la soo gaabiyo hadda half horteeda waxaan haysanaa apostrophe d waxaana ka horeysa magacyel so marka apostrophe d maanta ma ahan had laakiin waa would hadii aan soo gaabino if clause-ka uu isticmaal had waayo had waxa ku cadeyn yani maadaama past perfect tense ay tahay falkiya waxaa laga dhigayaa bb form noun halkan waa perfect condition oo falka ku xiga yani ma ahan bb form marka ma ahan qaabkas marka ku garo had jumladan oo kale if I apostrophe d noun you were in hospital I apostrophe d have visited you waxaa loo jeedaa if I had noun you were in hospital I would have visited you aniga dan ogaan lahaa hospitalna ku jirtid waan kusoo booqan lahaa if I had yani if clause-ka waxaa hadda jeer apostrophe d that means waa had ay u taagan tahay if clause-ka hadda jeer apostrophe d waxay u taagan tahay had main clause-ka apostrophe d hadda jeerna waxay u taagan tahay would ay marka u taagan tahay taana marka maskaxda ku hay so marka wuxuu dhahay midan oo kale I would have brought you a present if I had known it was your birthday sidee ku ogaaday I would why have arkamaano I would have brought you a present yani apostrophe d dan waxa loo jeedaa would I would have brought you a present hadii aan ku kan lahaa if I had known hadaan ogaan lahaa it was your birthday dhalashada inay hadaan ogaan lahaa hadii ayaa marka aan ku kan lahaa so marka exercise and conditional type 3 marka exercise kana marka waxa laga rabaa in laga shaqeeyo hadda kan waa sample ahaan anaan ka shaqeynayo tusaalahaan oo kale waxaa aragtay waxaa lagu baneeyay laba meel yani if clause-ka yani waxaa lagu dhahay waxaad ku buuxisaa exercise on conditional type 3 waxaad ku buuxisaa type 3 conditional ku buuxi so if clause-ka yani qaybta if clause-ka hadda jeer waxaa lagu sameeyaa simple past perfect tense okay if you horta had say if you had falkaygu waa study before marka ay if you had studied for the test hadii imtixaanka yani daraasay lahayd you يعني qaybtu waa perfect condition maadaama perfect condition ay tahay yani would falcaabiya would have markii aan dhaho fal waxaan haystaa baas marka waxaad iga dhigtaa bb form you would have passed it at ku baas lahayd midaan kale if we qaybta marka halkaan xabidinka idinka rabaa commentiga ha lagu soo share gareeyo yani commentiga marka ha lagu qoro aadan u maasantiin that means yani hadda casharka meesha ka daawanaysa commentiga aad ugu jeedid meesha ka soo horbaxa kasoo comment garee yani hadii casharka aad fahanteen iyo hadii kaleba aadan u maasantiin asxaabtiina marka